way horta soo dhow ilaahay qalbiga ku qaboojiyo gabadhaasina waa gacan ka xaq daran bay horta ku baxday waana arrin murugo badan oo xanuun badan oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda soo jiidatay oo ay aad u dhibsadeen ma soo jiidan la dhibsaday qalbiyada bini'aadanka oo dhan bay taabatay qof kastoo naxariis iyo iimaan ku dambeeyana arrinkan uu ka naxay marka gaban aniga cadaalad un baan rabaa ilaahay subxaanahu watacaala maxaa lahaa xaqeeda inuu ii soo ridaan rabaa gabadhaasita ninkii dhibaatada u geystana waa cabdallah magac kale ku joogaa UK laakiin cabdallah marka hore taliidhahaa buu nagu yiri 4 bilood baan gabadha tashkiilinaaye gabadha hooyaday baa dhiikar qabtaa hooyaday way xanuunsan tahay maxaa dhahay muddaan tashkiilinaaye ugu dhahay muddaan gabadha tashkiilinaaye mar walba waan kari la'aa kolley qadar un baa dhacdo iyadana meesha ka riday marka maxaa dhahayay waxaa lagaaga baahan yahay ugu yiri gabadhii haddaan gacanta ku hayaa waan diri rabaa intaan ka dira inoo lacagtaasay soo dir $17,000 soo dir waxaan ku yiri $17,000 ma heli kari qaxooti baan joogaa waxba ma haysti agoonimaan kusoo koriyey marka waan ku baryayaa waxaan ku yiri lacagtaasay in layga dhimaan rabaa lacagtaas lacagaan heli kara ma aha intaad sheegteen baan heli karinba marka wuxuu yiri maxaa dhahay $15,000 soo diyaari in $2,000 anaa kaa dhimay carabka ay haysto marka intaas ka badanna ma awoodi marka waxaan ku yiri aniga masaakiin baan iska ahay qaxooti baan joogaa waxaan haysta malaha ilmaha agoonimaan kusoo koriye abood wuu dhintay marka waxaan ku yiri maxaa lacagtaasaytu aad bay iigu badan tahay maama wuxuu yiri hadalka badan jooji lacagtaasayta lagaaga baahay soo dir haddii kale hadda gacan bay ka jaban tahay maxaa la dhahay haddaad sii hadasho naftaaba dhaafinaynaaba bas islaamka ilaahay waan u dhaxgalay lacag $5,000 aan helnay $5,000 baan u dirnay $5,000 markaan u dirnay 3 beri way naga aamusnaayeen telefoonkan maxaa la dhahay ool hore suux walbo waan la soo wici jiray telefoonkan lagama qabanaynin amin casir ay taa markii dambe uu iga qabto cod aan u duubay codku ka soo jawaabo wuxuu yiri maxaa la dhahay waan gurguurayno anaga nala raadsanaa magafiyaasha la raadsanaa waan gurguurayno saasaan kaaga mashquulsaneen anaa galabta caawa markaan meesha tago aan gabadha kugu geyno telefoonka xerada markaan tagaan telefoonka kugu geyno Libyaan joogaa hadda xeradii buu tagay xilliga ahaa caasimadan joogaa ugu dhax xilli gaaban buu tagay oo adiga anaga ay noo tahay xilligaasi 4 saac habeenimo anigii oo xanuunsan intuu naqaska igu dhagay gabadha say u dhaqaaqdaba meedkeeda ay dul saarnaa ilaahay qudradiis waaban kor baan u istaagay laa garbaha la qabanaa markaan lacagta geynaa bas ilaahay qudradiis islaamka umba ummadda u dhaxgalo u aruuriyo oo lacagta ii keeno sidii aan lacagta maxaa la 5,000 aan ku dirnay waa iska xanuunsanaa habeenkii naqaska igu dhagay aad baan u xanuunsanaa markaasuu intuu isoo wuxuu ila soo hadalsiiyay gabadha ilaahay qudradiisa fast hore video call ay ku soo galeen jag wuu jaray video wuu jaray iyadoo ku qaylay wuxuu maxaa video call ugu wacay maamada wax baa rabtaa inaad tusto miya maya gacanta iga dhacday waxa ma tusaay marka wuxuu tiri hooyo miyaha meesha waan ku rafaadsanahay dadkii gabadha ila socotay oo Maryan ay dhahayeen waan ku sheegaa oo isla soconay aan ku dhahay daacuun ay u dhimatay meedkeeda halkaas uu yaalaa hooyo macaanay dadku way dhiman hayaan meesha waa lagu silacsan yahay maxaa la dhahay iga soo dir lacagti waa markaan 5,000 diray ka bacdi bas iga soo dir lacagti hooyo waxaan ku dhahay insha Allah waan dadaalaynaa maxaa la dhahay ummadii oo dhan baa ku dhaqaaqday ilaahay baan leenahay waxaa waa helaysaa hooyo macaana niyadha iska haleyn insha Allah aan ku dhahay duu ilaahay rab naftan ugu simo waxa aan ku helno waa lagu soo diray asagaan la hadlo waxaan ku dhahay Cabdallah walaalow macaana waan ku baryay wixii la heli karo waa lagu soo diray gabadhaas yaan laga jirdirin yaan waxba lagu sameeynin gabadhaas waxaan idinka rabaa in anagana wixii karaankeena iyo ehelada iyo reabtigeed maxaa la dhahay gabadha reabtigeed ma jarteen waay waxaan ku yiri reabtigeed iyo reabeed kulli wixii laga soo heli karo waa la soo raadin gabadhaas yaan laga jirdirin meesha ay ku jirtaan iiga bixi maya meesha waan ka bixiyay maadaama $5,000 aad soo dirteen waan ka bixiyay meesha kuma jireyso waxaadana waxa kana maxaa la dhahay waxa kale lagu soo daro soo dedeji lacagtan gabadha meesha kaaga sii bixiya daarad habeenkaas maalinta aan codku duubi doono khamiis ee jimcaha habeenkaas soo galaysa marka waana gabadha Maryan meedkeeda markuu meesha yaalay ilaahay qudradiis way ila hadashay gabadhi hooyo waan wada hadalnay waxay tiri marka maxaa la dhahay hooyo insha Allah bal soo dadaala hayo insha Allah waan dadaalaynaa aan ku ilaahay waan noo soo bar adigan inuu ilaahay maxaa la dhahay uu meesha nabad kaaga saaro oo quraan akhriso waqtiga ilaahay tuko ilaahay bari waan ku yiri hayay igu dhahday waaga markuu bariyo 12 subaxnimo aniga sideedaba ma kici maxaa la dhahay waan gacan ka kici waay wadnaha aniga dhanba waxba i saarnaa sibaan iska ahaa haddaan wadnaha ka kici waay dhabtaydu telefoonka saa ugu jira meel aan ku tukadaan fadhiya telefoonka dhabteeda sida ugu jira ilaahay qudradiis telefoonki
waxaan arkay laba maxamuudka iyo cabdullahan labadooda laba magafe ay u qor magafatu iyo magafoon baa u kala qornaa labadii magafe labada leen waxaa laga soo kala diray meedkaa laga soo kala diray iyo codadkaa laga soo kala diray laba codaa lasoo kala diray labada magafo ay kasoo kala direen labadana codki wuxuu ahaa cabdalla asaga afkiisa kusoo duubay labadii saa markaan bismillaahi raxmaan raxiim aan dhehe maxay magafahan codadkan uu soo kala diray saacadan aan dhehe ilaa xaloo kale aan wada hadalnay naxdin xilligaa 12 subaxnimo xilliga meeshaan ku tukad aan fadhiyay ma filaynin inuu xilligaa wax soo diray waan nax marka beerka wadnihii iyo waxaan isku daray jirkayga saaid u gariire gabar ag joogtaa telefoonka dabtaa day fiirise allahooyo anfac oo la dilay ay tiriba anigii koomaaban galaba aniga waxaa noqday boqolka baana noqday intaas bariyo bistaal igu hayan sakaraad gaare meel lagu duugay meel lagu xabaal dadkii telefoonkayga qaatay asagaa la wacay meedka soo maniyo waxa dhigay gabadh $17,000 soo dir baad ku haysaa meel lagu soo diray ma naqaanay meelaan macnaha aan ku hadalna ma naqaanay gabadha meed baan u aragnaa inay tahay maya gabadha meed muu yiri lacagteeda degdeg la soo galiyo ogaantay dowr maxaa la soo galin hooyada kooma gasho maxaa la dhahay sakaraad hooyadii kooma gasho sokor iyo dhiikar baa ku soo booday maamadii sakaraad wax la soo diray wax la islaahay meesha ma jirtay gabadha bal codkeedana soo maqalsiyay dariskii islaamka iyo wixii oo dhan ba ay telefoonka intay qaateen ay kala telefoonkaygu blog buu saaray waxay kala hadleen telefoonno kale kala hadleen laakiin lambarkiisa ka baxsadeen marka saasaa jirta hooy macaane saasaa jirta ilaahayna xaqayga maxaa la dhahay xaqeeda allah soo bulbuliyo insha allah intii dhimaneed ma dhamaystirteen marka hooyo yaa hooyo ma lacaga dhamaystirteen marka maya waxba lama dirin okay bas $5,000 bas la siiyay ma fahantay $5,000 bas la siiyay wax lacag aan dhamaystirna ma laha iyo wax markaas loo hayo u diyaarsan ama jirin iyagoo maantaas kala lacagta la diray maalin 3 bari ka bacdi ka soo wareegtay wixii kale oo loo aruurin umada loo dhaxgelin ba hadana maxaa la ilaahay qudradiisa arintan ay dhacday marka saasaa jirta hooyo horta soo dhow ilaahay qalbiga ku qaboojiyo gabadhaasina waa gacan ka xaq daran bay horta ku baxday waana arin murugo badan oo xanuun badan oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda soo jiidatay oo ay aad u dhibsadeen ma soo jiidan la dhibsaday qalbiyada bini'aadanka oo dhan bay taabatay qof kastoo naxariis iyo iimaan ku dambeeyana arrinkan uu ka naxay horta ninkaas horta waa maxaa tiri nin allaala ninkii wuxuu dhahay oo lambarkayga intuu qaato dhaho ninhow gabadha ma dhimatay xaalada gabadha waa idiin soo xabaalay laakiin gabadhan gacan bini'aadan bay ku dhimatay aniga ma dirin gacan bini'aadan bay ku dhimatay gabar baa mashintay gabar baa furtay locationka furtay saan yeesha kan yeesha gabadhaasha mishinta telefoonka aniga aan sii qaaday meel kale geysay wax balaayadaas uu daldalay dadka saas xogta dhan hooyo waa naloo sheegay gabadhii meydkeeda dhaqday baa xataa noo timid oo noo sheegtay adiga iyo ehelka iyo ummadda Soomaaliyeedna ilaahay qalbiyadaha u qaboojiyo ninkan hadda sawirkan aan soo saaray waa markuu yaraa calanka galmudug baa gacanta ugu jira facebookiisa laga soo qaaday hadda ninkan wuxuu joogaa Ingiriiska UK ummadii oo dhan oo booliis leh oo looyaro leh oo dee Soomaaliya ajaanib isugu jirtaan baa horta ninkan hawshiisa hadda gacanta u gasha Yurub ma ku badbaadayo waa la soo qabanayaa ma dhuuman karo cadaalad baana adiga iyo hooyooyin kaloo badan keligaa maahan ninkan dee dadka hadda aan maqlay almost waxaa u malayn 20 qof waa dhaafeen gacantiisa ku baxdo dad kala duwan oo dee meesha arkayo xaqiiqada u jeeday ay soo gudbiyeen way marka cadaalad horta ilaahay agtiisa taallaa gaaradan iyo wadamadan westernkana waxaan rajeynayaa in ninkaas maxkamad la horkeeni doono oo uu yani mari doono dembigii iyo dhibaatadii u geystay ummadda hooyooyinka Soomaaliyeed ee qaabtii u mariyay mid lamid ah inay marsiin doonaan tuga marka waxaan hadda almost 3 bari miyaa wadnaa mise 4 bari meeshuu joogay waa soo helnay wax kastana waqti iyo dulqaad bay qaadaa yani loo baahan yahay in la sameeyo waa in la samro qadartana idinku ku samra annaguna hooyo ka seexan mayno habeen walba waa ka hadalnaa waa nin gacan ku dhiglaa waa nin dad soo dhibaateeyey kuwa u doodaya xataa jira oo ayaga laftirkooda Yurub jooga oo hadda qolka hadda dhageysanayseen difaacayay kuwaasna sharciga la horgeynayaa ummadda Soomaaliyeedna ka seexan mayso si cadaalad ku heli lahayd ninka codkiisa lahaa iyo ninkii kolay difaaca asaga aqradiisa ay dhibaysaa
ilmo badan oo agoomo oo islaam ah masaakiin oo dhibaataysan oo waalidiintooda inay dhibka ka bixiyaan rabeen dadka rajadooda u dhahalay